madaxweyne Putin ayaa inta uu shirku soconayay kulamo gaar ah la lahaa qaar kamid ah madaxda Afrika dhanka kalena dawladda Djibouti ayaa ku dhawaaqday qorshooyin ay ku dhisi doonaan wada tareen ah oo marta dalalka Afrika. Qorshahan dhismaha wadada tareenka ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha dekedaha Djibouti Abubakar Umar Hadi oo sheegay in Ruushku uu gacan ka siin doono. We are planning to do with the Russians is to build the railway. waxaanu qorshaysanaynaa inaanu ruushanka la dhisno jidka tareenka farsamadii ay hayaan lacagtii ay hayaan marka waxaanu jecel lahay in tareenka Afrika oo dhan dhex maraya in ay nala qabtaan oo ay nala dhisaan adduunka waa qaaradda qura Afrika aanu dhex marin wax isku xidha oo alaabada u kala daabura waxaanad moodaa in arrinkaasi tahay arrin aad u adag lacag badan ayaa ku baxda bal ka waran 8 week ayay qaadataa in kanalka Suez amaba Cape ay maraakiibtu maaxdo halka marto si ay qaaradda isaga gooshto imika waxaan rabnaa in arrintaas ku soo dhamaato 12 saacadood oo kaliya We can do it in 72 hours.